السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلام على ضمان والله Soomaaliya oo halkan aan saaxiibka ku nahay saaxiibada wanaagsan waa hatay dhamaantiin waadi salaama insha Allah taala meel kastood ka joogtaan adduunka taxaladiisa siiba gaar ahaan waxaan aad u jeclaa kuwa Soomaaliya jooga oo kala toomaarta qurbo joogta nagala taga wareerkiina aan leeyahay soo dhawaada meel kastood waraa kaftan waa dhamaantiin waa ii sinantiin gowdhaha soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan waad ogtihiin oo ay taqaanin kaftankii waxwaayn waa hawada sare waayn waa iska kaftamaa insha allahu tacaala dabcan waqti kastay ku tahay waxaan ku leeyahay caafimaad ku qaado waqtigaaga insha allahu tacaala meel kastoo aad ka joogtaa adduunka tacaaladiisa soo aruura sheeko yar waxaan idii hayaa oo haya oo khatar aan idii hayaa caawo sheeko khatar ayaan idii hayaa marka waxaan idin leeyahay soo aruura soomaalidu waa iska warjacaysa aari soomaali warjaclaha warjacli qayri khasaarama iska daawa waxay noqotaba adugu soo dhawaaw caawa kaftan waa in waa soo wici kartaa ahaatee oo waa ka qayb geli kartaa barnaamijka inkastoo suucuuga aanay ka helin haddana soo dhawaaw iska soo dhawaaw meeshaan waxaa fadhiya ninaan xoogaa saaxiibanahayo maxamed liir waa ka hadal siinaya la dhigay walaal maxamed see tahay wanaagsan tahay maasha allah maxay tahay waanu fiicanahay aad iyo aad aan u wacanahay hadal sidee tahay caafimaadkaada ka war hay maasha allah haddii uu la fiican yahay waa kheyr waaye marka haba malaynaa inaa meesha markaan ka hadlayo aan difaac la-aanahay waa difaac badana ii jooga meesha waad i tusaayay war halow war ma lay maqla war dadka caawa xaggee aadeen haddii habeen u tahay hadday maalin u tahay war ma la kala jiiftay insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa xoogaa dhinaca soomaaliya maaragtay sida qaababkii siyaasadda ay kala noqotay iyo waxyaabahaas aad iyo aad ayaa doorashadii iyo goboladii waa la isku qasan yahay qas xun ayaa ka taagan ninkii la dhihi jiray maxamed cabdullaahi farmaajo goboladii uu ku tashanayay ilaa hadda gobol taabacsan inuu ugu shubo lama haayo sababtoo ah gobol walbaba asaa kilkileey wax kale ma dhihi kara asaa kilkileey oo isku diray gobolayaashii oo dhan waa kasoo wada horjeesteen odaga wax raacsan maanta waxaa ka jiro baydhabo ayaa maantay wax raacsan maantay haddii la xisaabtamo waxawaaye baydhabo iyo gedo oo weliba dad yar uu ka haystoona dad badan uuna ka haysanin inta gobol oo soomaaliya ay ka kooban tahay oo kaleeto weli gacansaar fiican lagama hayo waxaweeye waa in badana ninkan waxaa la dhahay niyow siyaasadda soomaaliya maadaama dalka madaxweyne u tahay wax ka bedel waxba uu ka bedeli waayo wuxuu yiri ambower anaa leh anaa madaxweyne ah madaxa meel ka koraysoo la salaaxa ma jirto ma ku xisaabtamin xilku markuu kaa dhammaado sidee u heli kartaa shacbiyad ma ku xisaabtamin odaga way ka halawday way ka fashilantay maaragtay meeshii ay kasoo aasantay maaragtay isku keenitaanka soomaalida iyo isku maaragtay dagaaladii sukeeye markay dhaceen halkii laga soo aba qaaday waxay aheyday dabcan halkaa iyo anu wax kale uma aqaano boosaaso ayay ahayd reer boosaaso marka asiga gacan iska dhig okay thank you asiga marka reer boosaaso iska kama samaysan yani weji fiican wuxuu yiri wax walba aanay ugu fiican yihiin si u hadli karta soomaaliya markii la yiraahdo koonfur ilaa iyo gobolada kale way burbureen laakiin
halka gobol oo Soomaaliya ka fiyoobay wuxuu ahay dhinaca burburka fiicnaa wuxuu ahay Boosaaso ahay marka waxay ahaaday maadaama hadda gobolaysigii haatee halkii laga soo fuliyey laga soo amba qaaday Soomaali soo yar laga soo jajafay laga soo toosiyey maadaama ay dhinacaas ahayd siyaasadiisu inay halkaasba u badnaatay waa haday waa nimanka la yiraahdo reer Boosaaso oo aqal laakiin Soomaalidu Puntland ay tiraan Puntland waxay ahaaday Boosaasaba magaalo madaxa maaragtay meesha dadku ay u badan yihiin waa waxa la rabay saaxiibkay inuu halka u badiyo maadaama uu asuguna mindaaroodiya yahay xaggana mindaaroodiya ay tahay waxa la rabay siyaasadda meel kasto mindaaroodiya hadda waa mindaaroodiya ay u badan tahay waxa la rabay inuu ka dhiga mindaaroodiya aduguna mindaaroodiya shacabka aan isku duugano oo dhinacyasha daaroodku daga gobolayaasha iyo degmooyinka gobol ku xigeenka iyo waxa la rabay inuu siyaasadda u badiyo saaxiib dhow la noqdo kuwan kala horta hawiyaha marka dambe soo yar kilkilaha loo dhiibay iyo meelaha gobolayaasha waaweyn hawiyo soo yar lixaadka kuleeyeen inuu soo yar qaar ka xoodiya la rabay laakiin adeer hawiyaha xoodiya min daaroodiya أو سلام في عنك هاينة هذا ما أنت كورنا إلى يقول أرشيء أنا فهم بلد الجن أو المي يجوجان متى أو سوق بنا أنا محمد عبد الله فرماج متى أو سوق بنا أنا فهم البدن ما شاء الله أو جورتكن أو هير دقانة هو يدي جوكت طبعا أنا جوكت هذا إراك ور المها على أنا ilmaha dhalay lama hadlay sanka u taagan hooyada ilmaha dhashay bisan saaxiib la noqona guriguma adiga caruurtaada guriguma ku wada noolaa kartid adiga caruurtaada guriguma ku wada noolaa kartid wallahi inuu ku noolaa karina sababta ah waxa uu dhowiyay qaar geesiyaala ciyaalka iskaga jiraan qaar in iska tagaanay u dhow yihiinba maadaama odagii waji fiican guriga loogu soo hiranayo oo san lahayn qaar waxa laga yaabaa adoo sii jeedaba inay ku daqraanba marka war Soomaaliya oo dhan maadaama madaxweyne u noqotay waxa laga rabay inaad kulli aad saaxiib la noqoto laakiin waa isku dirtay waa isku dirtay hatta daaroodiya isku dirtay feer ilaa ku dharshay majarteen gacan kama haysat min majarteeniya kama haysatid gacan al ogaadeniya gacan kama haysatid alkasiya gacan kama haysatid kuwa kale si fiican uma kala aqaan kuwa kale gacan kama haysatid mareexaanka gacan kama haysatid oo ogtahay gado sidii loogu muudsanayay oo ka hadli waysay waad ogeeday maaragtay horta hawiya waxa gabadhii horta xaq iska dhig hawiya kulli waaba ku wada jireen ilaa caafimaad ha keene maaragtay waxaan ka hadlayaa siyaasaddu halkii ugu dhaweeday odaga halkii ugu dhaweeday ayaan ka hadlayaa siyaasadda kow waxa la rabay aldaaroodiya inuu saaxiib wanaagsan oo aad isku dhow yihiin inay noqdaan la rabay wax waa socolahay laakiin maadaama adag gacanka hadda ma ka saarayay wasaariye caawa alaas wuxuu jiraa hadda aan sheegayo dhinacaas uu jiraa dhinacaas reer Boosaaso uu jiraa iyo meelahaas galmudug iyo dhinacayaashaas uu jiraa ninkii dhinacaas xukuumay caawa casha sharaf ugu yeeray markaas wuxuu yiri kuma jiro aniga kuma jiro sababtoo maalmahan oo dhan ay shiraayeen yani taladii way ku heshii waayeen sababtoo markii cashada loogu yeero ninkan waxa laga yaabaa shaki inuu qaadayo meesha ka shakiya laga yaabaa Soomaali kulli waa ogtahay waxba dhaxyaalo idii imaamayo yiri caawa meedii imaanayo yiri ra'iisul wasaare caawa meedii imaanayo yiri okay shakigaas ayaa marka shakigaas ninkii dhawaad dib u heshiisiinka oo u diray ninkii la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo u diray ninkii dhinaca haystay sharaf kama soo qayb galayo yiri sababtoo ah ayantan la shiray siyaasadii lagu heshiiyay
shirkii wixii waa wuxuu doonayay waa hagaagi waayey markaasna wuxuu yidhi no casho sharaftas kama qayb galay okay dabcan in badan oo maaragtay ana hadda xilkii inuu ku noqoto ana raalli ka ahayno waa jirtaa inkastoo dad yar ay maaragtay iska jiraan inuu soo noqoto jecel marka horta waxaa la yidhi dowlad la-aana la yidhi dowlad xunaa dhaanto marka by lucky by nasiib iska ambaag insha allahu tacaala haddii kaleetana haddaad soo noqon waysid only go no back haddaad noqotidna waxa waaye mid kale kolley taba qabanayo asigana waxaan kala kulmi doono waa dee iska sheeqii wacdiyey wuxuu yidhi aayaddii qur-aanka hadisay tahay asoona wax ka qaldin markuu dadkii u wacdiyo dhammeeyey ayuu wuxuu kusoo idleeyey allahu waclanuu yidhi markii ugu dambaysay sababtoo ah yani ilaaha og sababtoo ah wuxuu ka baqaa wax dembiyu inay kasoo gaaraan waana sax haddii saxa uu soo akriyey laakiin haddana wuxuu kusoo dhameeyey allahu aclam marka hadda waxaan leeyahay ninkii kaa dambeeya bay nasiib haddana qabtaa waxau la imaan doono niyo ilaahayaa ogniyo mucaaradkiina waad ogtihiin oo dhibaato fara badan iyo ismudmud iyo dowladisaan ma ongola gegegegegege war badanaa socdo ilaahay khayrkaana waafaji war mid sharaf hadduu u qabtanimo mid sharafna haddana ha ugu dego oo mid kale sharaf ha loogu dhiibo ilaahay ha idin sharfee sharaf allah hadiisiiyo waa idin ducaynaynaa anagu waa idin ducaynaynaa inkastoo aniga naftigeeda adigu noo jeediin oo dad badan oo qamarjiyaal aan ugu jiro siyaasadda wax ka yaqaano sida aniga oo kaleeta rag kaleeta qamarjiyaal ah laakiin weli aan isi soo taagin oo dalka wax ka qaban karo dalka wax u qaban karo marka waxaa la yidhi shimbiro badan oo haraadsan oo markay biyo ku yaacaan mid unbaa haddana biyihii daba ay dib ugu liqaan marka anaga meesha waa soo sharaxi karnaa laakiin waxaan diidaynaa de intaasoo qof madaxweyne caalamku inuu nala yaabo caalamku markuu yani dowladda markay tartamayso 2 qof 3 qof tartanta laakiin anaga waxaan noqonay de shimbiro badan oo dudayo kulli madaxweyne wada doonayo waa hal madaxweyne la doonaya okay meeshiina waxaa taala dhibka taagan lacagaa la rabaa lacag intaasoo $1,000 waa inaad faraqdo wallahi billahi horta maalinka doorashada horta waa la taajiraa maalinka doorashada jirto dadku waa taajiraa madaxweyne isku soo sharaxaya markaasa nina wuxuu ka qaadanaa $20,000 ka qaadaa mid kale $20,000 mid $30,000 mid $7,000 mid $8,000 mid $5,000 qaaraas $3,000 qaadanayo okay ilaahay ugu dhaas imisa meeshaas imisa lacag ku baxday imisa lacag ayaa ku baxday meeshaas intaasoo lacag nin walba wuxuu dhiibayo fiiri hadda nin wuxuu siiyey mataal $10,000 uu ka qaaday gacantaanu $10,000 ku qaaday jeebka uu gashay luuqaana uu galay nin kaloo taagan oo madaxweyne rabo wuxuu ka qaaday $8,000 mataal jeebka uu geliyey mid kale wuxuu ka qaaday $15,000 waa isla ninkii jeebkaana uu gashtay jooska asaale hoolka markii la galo waxuu lacagta ka qaaday ninana ahayn ugu shuba نجي كده كران مال العقد يسوع علينا ما ده كران حرفان العقد لسي أرتو نبكي يا لا ماشي واكاس ومصوماسو أبتيجيس أديركيس أوجيس قرابديس صوت الريركيس كلف فوقاشنديس اسكسود دواشيس وحسب شيء على مركب نكرر أنت صار حاجة بحنا وأردا أوحيين يعني دي هاس بعضو أو dadkii la guduliyasha ku hoos jiro ayay idiga hoos bixin markuu madaxweynuhu ku guuleysto meeqo helay lacag ay cashuur wadanka ka soo aruuray adeer oo asaana abtu asaana aboowo wixii dekad ka soo xaroona wixii habaryaaya ka soo baxdo laga qaaday baabuur socdo wixii laga qaaday guriyaha naftigooda dawladda ay dhalata cashuura laga qaadaa ama laga soo aruurina cala guri $3 $5 laga qaadaa Afrika saas waa laakiin guriyaha wadamada reer galbeedka wax cashuura qofka degan oo iska wax cashuura ma lagama qaada ma okay laakiin Afrika oo dhan abasaasaba ayno waa ogahay aniga marka
ninkaan intaasoo lacagu markuu intaas uu bixiyey wuxuu ku xisaabtama dakhliga kaa soo galaya markii madaxweyne nasiib lagaa dhigo ayaa ka badan ayaa ka badan walaalayaal dadkii waa jiiraabiseen marka ilaahay ka baqo dadkiinano ilaahay ka baqa dadku waa masaakiin xaba ma haystaan haddii lacala lagu doorto wadankii shaqa ka keena isbitaalada dadku wanaajiya jidadka dadku wanaajiya biyaha la cabaya ka dhiga weysaxo isku socodka dadka iyo gaadiidka ka dhiga ishaay okay ka dhiga afrikaan socodeyska joojiya afrikaan socodeed adduunku waa ka tegay nimayo afrikaanku dib u socdaa oroba socdeeya hore usii socda oo caalamka la jaan qaada ilaahay ilkalaan haadii dhige war walba sababtoo waana dhibtay dadkiina madaxda habaar maahana wax kale idiima hayno wallaahi bilaahi runtaan sheega aniga habaarkuuna marmar uu ducaa noqdaa af kale waa niyadda ma aha rag badanoo waxaan arkayay xilkii ka dhamaaday oo gawaaridii la siiyo shalay quruxda badnaayo oo buxuu xaaxahay oo xalay idaacooyinka laga baafinayo loo leeyahay hebel gaariga taargadiisu d fa aw waa inuu dib u soo celiyaa oo dhirirkiisa mitirka jawaaba la mitiriyo waa qoran yahay dowlad la dowlad haya jirto furayaasha dib soo celiyay gawaaradiyo nool keena oo buusnayn qaar baaba shil galo mar hore gadoomay qaar kale oo baabuurkii shilka galay ninkii wadayna waxuu ku socdaa sabay mootaab lagu geyno waa meesha shaqada intay laga keenay baabuurtii doorashadan markaa dadka lacagta ka aruursadana baabuurtii idigadayna dowladda baabuurtii waa cuneen nadaaya qaarna waa gadoomeen qaarna shilay galeen naga tag aan ugu soo qamaamine indhahan soo gashanaa anaga waa cunne intaad baabuurta ka naadinayso oo dhan kulli baabuurtii qaar naadiiska markaa bilowdeen 3 baabuuraan nooladeen 3diina tuulooyinka adegnaa u dhiibnay waa la lugeyno qaarna mar hore bay gadoomeenba qaarna mar hore shil galeen oo garaashii ku jira nagala taga qamaamka subhanallah markaa dhiibaysa waa ku taragta lagu la gasheen anaga oo diga saxiixnay inaan dib u soo celino madaxaad noqotay gaarigaan ha u yeelatay furahan oo tambax hanbiyaaba na geliseen intaasuna waxay ahayd intii kale to majaajilada eedoodii dhex geliye ilaa waxa imaanaya ogahay gaaris hooma socday ilaa idaacadiina waa ka naadiseen xal si loo xisaab shaab wala koob shaab dheer u soo qaata dhigiis idaacada 2 jeer ku ciistay waliba 2 jeer ku ciistay war soo dhawaada nimayo assalaamu calaykum haata soo qora salaantu idoo ma loo hordiinayeen mar assalaamu calaykum ana ba idin dhahay wa calaykum assalaam soo qorkii ku jiro qabaa la ka gooy marka waxaan dileeyahay marka insha Allah ta'ala ora la shaqayna bal wixii yimaado ila rabbi horta wiligay ma arkin Soomaaliya horta safiri wadamada muslimka dumarku inay madaxweyne ka noqdaan xaaraanay ka tahay sagooyinka kalena waa loo dhiibaa maaragtay waa laga dhigaa duqa magaalada waa laga dhigi karaa kow qabar la arkay meeyda yoomay degmana waa loo dhiibi karaa haya duqa fakatay maxaa kaleeto qaybaha dawladda ka midana waa lagu diri karaa haya intaas ba hadii loo dhiibay hay madaxweyne marka intay u jirtaa madaxweyne abtigeed leeba tahay buriyay garguuratay tagay ya intii kale waa u dhiibne oo inta kale naag nooga dhiga sharafta Allah diga riday male naag nooga dhiga naag nooga dhiga inay batrool soo saarto inay waxaan ku leeyahay jidadka noo dhisto basaska la raacaatay lacag laan ay ku soo rogto macdanta la baaro diyaaradahan adduunka hadda la iskaga hormarayo oo la isku gumaysanayo waa bilaa duuliye la'aanta oo remote-ka lagu hagayo bal ay soo saartay naag di madaxweyne looga dhigo ilaahay guud bal adoo iska jiifo haddaan ninta ay haddaan naag tahay tire koob intay xaafadaha ku samaysan naagtaasu ay mushaar dadka dhan u qortay tirada waxaana shaqeyno jiif lacag ku qaata naga haya madaxweyne ka dhiga bal rag waa wareere ya bal niyo doorkan naag ku barooqaya bal war wuxuu yiri niyo shaqay diiday ma shaqay diidaysaa oo yiri wariyo ka dhiga naag madaxniyo ka wax la adiga gooyay male
intay hadda fiir ilaa kugu dharshay naagtii gudoomiye degmo waa ka dhigtay naagaa gudoomiye degmo waa ogoshiin duqa magaalada naag waa loo ogol yahay dawladda inay naawo ku jirto waa loo ogol yahay madax ka noqoto madaxweyne inay noqotana ma rabtiin xaasnimo aalamiga ma loo diido dawladda ma ka qayb galaysa ama gudoomiye degmo ama gudoomiye xaafad ama duqa magaalada ma ka dhigayna ma dhaadino naagaha wallahi sharafay leeyihiin naagaha aan Soomaaliya adikoo jiifay intay wadanka shidaal ka soo saaraanay wallahi billahi tallahi naag madaxweynaha hadii laga dhigo xaafada intay tirkoobto kuwaana shaqeeynin hadii mushaaraysiinaysa isbaalada ka shaqeynaa meel kasta wax weyn haay nooga dhigaysa wax weyn god jugjac naagaha ilmaha ka soo dhacaan boor sida mootada of saaran marba ma la arkay yaaba warkayga horta warka inuu afkayga ku jiro diida ma har cidiga yeeli leed ya haddii la tago beled daarood degay beled hawiye degay beled inta u guli raxan way cid iga yeelaysa ma jirto laakiin waxa diidaa inuu afkaygu caaw ku hurdo laakiin waa arina waa ii soo hurgo sa kala dhicisi kala dhac adikeydii taala marka waxa dhihi lahay ninka la yiraahdo maxay Cabdullaahi Farmaajo kulli taba siyaasaddaadii saaxiibow adaa gobolayaasha isku diray gobol u fiyoobo ma jiro maanta laga dooranayo ma jiro ilaa gobol min daaroodiya ilaa gobol min hawiya ilaa gobol arraxweyniya ugu roon hadda oo calanku u babinoohayo iyo gedo haaf ongol inta gobol oo kale to daarood hadda ganaado hawiya hadda ganaado meel maanta hadda oo gacan fiican ka haysta odaga ma jirto sababtoo asaa isku diray أصلاً إسكودري إن عاس أنت من هبر قدرت يدارات كأنت أمريكي اللي شوف اللي إسكوسيو اللي إسكودرو جعلوا واحد ربي وصلبات إسكندر يارصدو أصلاً إسكودري لكن أنت أوزو دي هذا أنا رأيت عن حوالي يدجان أنت كلاتو واحد كلو اللي دجان أسكوررانك أيوة أنا سوى عينه يعني أروح بين اللي ده وأخو قصبنا أيوة أنا سوى عينه ولا يقول لي والله ما له والله بالله وكيا دقة عندله وكيا دقة مرة عندله وكيا مركا وراح هذي لاي دور كان بالحنا لو بروبه حد يوركي يسلق هذا نينا سوى الله هاي ويرناك اللودي أنا حد اللودي وأنا حكي هلا هنا أنا جوابك ودشة أكو Soomaaliya ku bartay dharay ku gudis iskuulay ku geys dugsi quraanay ku geys waa ku soo halaaq bartay yaa ka sharaf badan diinta islaamku waxay qabtaa naag horta looma dhiibi karo dawlad qayb loogama dhigi karo madaxweyne lagama dhigi karo sababtoo shakiga ay qabaana waxay tahay ayadoo madaxweyne ayay intay safartay safar galay xumaanaysa may kartaa xumaanta adoo ninaad waa samaysaa oo naagtaada ahayn marmara shuuturu ku tiraa runta la isku sheego runta la isku sheego raaga waxa jiro sharaf loo dhowrsan jira madax ragii meesha waa ku heshii waaye naag madax looga dhig aroo kulli taba taas qaba gabdhahan aqoonta leh jaamacadaha adduunka hormaray ka soo jeed qalin jibiyay adduunka maaragtay wax la qaybsan karo dawladooda inay burburto diidan oo damiir kale oo dhiig kale oo ubadku u naxaayo dawladda qayb laga siiyo ila wadankii baa daaratiin hadii kale ta adikii iyo raa maaragtay isku celceliyo isqarqarxiyo oo si maaragtay xumeeyo oo maaragtay lacag South Africa horta ka shaqay jiraadii sheeg wallahi wa billahi oo tallahi waxa Soomaaliya ka jiro oo waliba Muqdisho ka jiro horta adiga sheekay qofku markuu daalo wadamo badan soo maro wadamo la isku dilo oo waliba dawladu ka jirto markuu ka soo shaqeeyo waxa weeye wadankiisana waxa yaalo sababtoo uu darsa uu ogaa karaa horta South Africa ayaan ka shaqeey jiray South Africa dukaanaad meel ka furanaysaa xaafad aan dukaan lahayn dukaan ka furanaysaa marka dukaankii uu kala kacayo lacagta hay tahay hawada ku marayso ayaa xariif kale oo Soomaaliya ku soo ilaaleysana ataado ku soo siina Soomaaliya markuu ataado dukaan ka furto Soomaalida kale waxay sameynaysaa niman madoob oo la yiraahdo qoose oo madoow
ayaa lacag la siinaya waxa la leeyahay ninka atayda dukaanka ka furtay ma aragtaa lacagtan qaaday soo dil waa la soo dilaa yaa dilay ninka Soomaaliya lacagta bixiyay ninka Soomaaliya ayaa lacagta bixiyay hadda marka muqdisho gudaheeda dadka lagu dilaaho waxa waayeen wax Soomaali ay isku adeegsatay ayaga gudahooda gobol kasta Soomaaliya kamid ah dadka lagu dilaaho Soomaali kale soo adeegsatay taas waa waxaan aniga aan ka dhareegsanahay na aan ogahay waa sheekadii South Africa Soomaalidu ay isku adeegsan jirtay markii Soomaaliya joojiya qaabdarada joojiya waxyaabaha kale to mar si kale u dhaco la og yahay aro taas ka hadli ma waa la og yahay laakiin sometime inta badan dadka caadiga ah magaalada jooga xaafadaha degana maaragtay qayb kale waaweyno ee qaybta u adeegsanaysa intay lacag soo siiso marka يعني waxaan ka dhareegsanahay aniga badaalanay maxaan yani waxaan fahmi weynayna aniga waxaan fahansanahay ka baxsanahay ka dhareegsanahay waa sheekadii South Africa wuxuu ku leeyahay ninka South Africaanka my friend uu ku leeyahay my friend saaxib soo taangana waxa waay wax iga gado wuxuu ku leeyahay my friend isoo qabo kaleeto wuxuu ku leeyahay my friend isoo qabo sigaarkaas oo kaleeto sigaarka markaa u jeesato saas atirado doontane busoolado intuu kaaga dhufana muxuu ku yiri my friend saaxiibna waa ku leeyahay waana ku dila marka hadda sheekada marka marmarka inta ugu badan dhacdo waxay tahay in anaga isku dhiiga isla dhalanay walaal Soomaali budwayga isku in isku soo adeegsano qof kale walaal lacag soo siino niraada hebel soo dil sometimes see loogu gudbi karaa marka waxa loogu gudbi karaa waxay yihiin inuu wadanku cadaalad helo inay dhalinyaradu shaqo hesho dhalinyaradu markay shaqo hesho xumaan oo dhan waa laga gudbaa qaab darro oo dhan waa laga gudbaa horta qofkaad lacag sii leedo hebel soo dil aad dhihi lahayd markuu shaqeeyo ma lacag uu u baahan yahay laakiin hadduu una shaqeynin lacag uu u baahan yahay haddaad tiraahdo maanta laba marduufo jaada kuu qaadaa hebel soo dil $15 ka heshana qaado wuxuu leeyahay laa ilaaha illa allah labada racwado ku maraqaan haye $15 kalena $5 casho ka dhigahay $10 sigaarkaaga iyo shaahaada iyo baashaalkaaga iyo abay baclaydaada iyo xayeysiiskaaga iyo ka dhigo uma jeedo qofka nool oo nafta u dhaafiyo ma u jeedo laakiin maxaa loogu gudbi karaa ina waxa soo dhan kiniini ka hortaga la siiyo oo shaqo loo helo sababtoo ah gurigaaga markuu cayayaan soo gala cayayaanka waa la buufiyaa laakiin ninka wax dila oo cayayaanku ka mid yahay cayayaanka see markii loo hortii karo kiniini ka hortaga looga sii karaa waxa loo sii karaa in shaqo oo hesho hadduu baahalo noqdo baahalnimada waa uu ka soo noqdo marka Soomaaliya yaa qabiisku dheelayna walaalayaal baashti Soomaaliya dhuumashow ka dheeli jiraa bal dheelo haya walaalayaal naga yaray kartada fahansanahay dadoo naga yaray saas oo meeshay ninka waxa la hadlaa aniga dalka loo dhiibo shaatiga noo soo bedelanayo ayaa la hadlaa aniga dadkaan shaqo u keena dadkaan say hore u socod u yeeshtaan oo maaragtay hadda waxa jirto dhalinyaro fara badan oo maaragtay ana iskuul inay iska bixiyaan ana awoodin bartay yani waxyaabaha qashinka la cabo bartay hadii iskuul lacag laana loo furo oo tarabiyo loo helo sababta faa'iido ugu jirto wadanka sababta adduunka waxa ka dhacday mid dameer wada jiro madaxweyne markii dabar noqday hadduu hadda koolla u cado waxa laga yaabaa inuu aqoon fiican inuu helo marka dambeetan wadanka madaxweyne ka noqdo laga yaabaa inuu ka noqdo military noqdo laga yaabaa inuu police noqdo marka ugu dambeeyo oo wadanka difaaca laga yaabaa marka waxa waay inuu kulayla isku haynaa kulaylka naga bixiyo meesha qabowna geey meesha qabowba noo roon aan isfahanno Soomaaliyeed aan isfahanno aqli badan oo diga buuxo aqli waxaad u rogaysiin wax kasta adiga waa fahmi karo aqli dabaal u rogaysiin aqli fiican oo ka buuxo ayaad waxa yani dabaalaad isku bedelaysaa
يعني waxaas soconaya ma aha aan ka fikirina midnimada Soomaali aan ka fikirina horumarka Soomaali wiil Soomaali hadii madaxweyne laga dhigo yaa laga daba qaylin inta sano u hartay loo daayo inkastoo laba sano hay wiji kale madaxweyne uu yeelanayo gobol kale ku duulayo gobol ku diraayo oo haddaba ay taagan tahay jasna la taagan yahay ay taagan tahay waxa la isku fahmi lahayaa ay taas tahay haddana lacalla haduu mid kala qabto أنا حقول لهم هاي فرماج كو ما رأيته كو عمري قاطع ضدو كو عمري قاطع نيك هذا طلعها هاي شو قبل كستو وجي وبدليه وإنه هانتيد الدولة كو تكرف شتو وسكو عركه يا باورك يا قدك وكجرو أن أنا هرسيات برا الله ونحرس الرجع هاي بس كمان حباس الجوبيات بقول مرة رواشة يعني مركا هذا تيجي حري سيات برا الرجع هاي صارت الرجع كو هاي محيط هاي ونيك الرجع وهابه كديله لكن وضنك هالدفاع وضنك هالدفاع عدوك هالدفاع بضع برقة ضدك سو جوما هالدفاع سياد بري بضن والدفاعي برقة والدفاعي ضدك والدفاعي عبد الله محمد فرماجو ضدكينا من الدفاعي بضينا من الدفاعي برقة من الدفاعي وحصو صار وضن كان هابي الشيقين مدحتو إذا هذا وحل الشيقين guriyii waa isku aamini waayo madaxtooyada dhulka hoosa loo qodaa la yiri wuxuu ku jiro meel dhulka uu ku jiro mid haduu soo dhaco kor ha ku dhaco hoos uu gudbi maaha banaana soo miisay kariya fagaaro horta waxa la yaabanahay niyo ninka horta dabaal biya wariyo inta ka dhima time-ka aniga afayeen iga dhigo wallahi billahi tolo ana ku soo shaabixinaay ana ku soo shaabixinaaniyo doorashadii lagu soo celiyay ana ku tusaayo oo ku soo shaabixinaay kuwa iyaguna godka kugu la jiro ayaad afayeen ka dhigatay oo banaanka soo adigina banaanka u soo bixi kartid shacabkii hadal ma dhigi kartid haddaad wax dhehaysid mudulaad ka soo dhaxadlay nin mudul ka soo dhaxadlay oo shacabka ana dhax lugeynayn warada daadi marayso horta cid ku celi karta mal wallahi godkana waa ku dhima karta shacabkana waa ku dhax dhima karta laakiin gobonnimaaba loo dhintaaba taariikh hadda horta adoo shacabka dhax lugeynaa lagu dilo buwaag badanna waa laga qoraa Soomaaliya sumcad weyn ku dhaxleeda laakiin godkaas daa ku dhimato hawaara le ugu dhimanay maalin kasta lagu hawaara dhimanaysa markii niyo tala ku siina nacso wariyo afayeen iga dhig ana ku soo shaabixina ana ku hadla ana ku dooda gobolladooyinka oo ku dhibay ana la hadlaayo ninkii waa isbedelay xirsiga u xirnay xirsigii waa ka furay badweynta Hindiya ku tuuray Soomaaliya kaalayoy garbaha is qabsanooy buunkii waxa yeerina aan ku leeyahay abgal cismaan ugu weyna uu yeeri jiray laba bilood oo waxa uu soo qaadana tabarucaad ase yeerina ku dhaay laba bilood markay ay dhamaato dadka aan isku keenana abgal buunkooda waa u celina ilaa hal buun oo yeer badan u yaalo caare wariyo kaar waa maataniyo wariyo ila soo xariir kawa Allah ka gooyay malle warwaadi salaam umada Soomaaliyeed war ay ugu wareershaa u maleynaa wixii dimbiyan Allah dhaaf كما لا ديكوي وعي دنبيا الله dhaafo Soomaali waa isku dambaawday wax un bay iska sheegtaa mid Facebook oo soo gala mid YouTube oo soo gala mid wadada ku hadla yani dambi un baa marmarka qaarkood naga dhacay marka alla ya qaliig saamaxni ya Soomaala saamaxni kikay afiya hadana wax dambiya galay waxa weeye meesha anu war un baa ka soo deynayo inta quman un baa ka soo qaadanaya inta anagu manayna waxa weeye hawadan ka bixiyay war hamida kale waxa leeyahay duceeyo oo gobolka Hiiraan kor Allah ka dhigo General Xuudle kor Allah ka dhigo leeyahay Hiirshabeellana waxa leeyahay live with my friend go naga taga midi doonayna anaga ree Hiiraan hadaan nahay coronavirus nama qabo waxa weeye وإيران هل ساعة هلا يبينا ما نعبينه تاسو عين مركب واحد يلاقي سومالية ملك استيعاب جوكتان عافي ماذا عمري دايري عيال دي رجينا إن شاء الله تعالى الدولة دان مركي للدورتان وحن إن شاء الله تعالى رجينا إنا مدحوينا في عنو توطوفي عنو إنو ضلك النوقب تقبريك يبضي يضدك الدفاع وصوصارو وحيابا ماركتي قيراتك وضك وكجرو دل يردنا الشقصية إن شاء الله تعالى ضدكونا وسكوبو من نغضو سنة قبيل وسنة هوسو فيرين وفيري من مدى صومالي كتير تاقر ونقضو تانكي good luck